بسم الله الرحمن الرحيم مرت شرف تكسعتا قولها قورتدا قدوميها دقمدا كوبيا صد كمي حلدبانا دا قضي دقاميتكا معلمين تعصبين لغو سوق ري دوكسيغا السري الشيخ احمد الشيخ نوح فري حلدبانا دا ايو مرت شرف تكال ايو وضياشا ايو دقاميتكا ايو عقاشبا ايو مدنية مروبة انتي نمانتا كسوق قيب قشي مدشان اينو كلها بكعلين اينو aynu doonayno inuu ku hanano inuu sii shaqeeyo dugsigani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية waxaan jeclahay inaan diyaar direysiyo dugsigan dadka loo soo maray iyo dadaalka loo soo maray iyo xadhiga loo soo maray iyo difaaca loo soo maray intii markaa la socotay ba taariikhda dugsigan haysa waynu dadaalay waa la dhisay baahi badan oo loo qabay awgeed hargeysa u qabtay baahi badan inay yeelato xaafadani dugsi sare waxa uu qabtay waa guud ahaantaas gaar ahaanna degmada koobiyo soddonka May ayaa baahi weyn u qabtay waa dugsiga kaliya ee sare ee ku yaala degmada koobiyo soddonka May ee ah public ama dawladdu leedahay laga soo bilaabo laamidayna kala badha Axmed Lagax ilaa iyo xaraf waa dugsiga kaliya sare ku yaala nasiib darro ehelkiisii iyo dadkiisii iyo jaarkiisii ayaad moodaa inay kala bakhayleen inay keenaan ardaydii oo ay qoraan horena dhaliisha dadku kaliya ma laha dawladuna way lahayd annaguna waanu lahayn sababtoo ah macallimiin lagu soo qoray oo rasmi ah oo waqtiga joogtay ma jirin laakiin burbur badan iyo cadilaad badan iyo dugsiga xidhmay awgeed waxaanu ku dadaalay inaanu laba kacleyn sameeyno si aan dugsiga baaxadda haysta ee dhulka haysta ee saaxadda haysta ee hawada haysta aanu u noqon ehel la'aan iyo dad la'aan wasaaradda waxbarashadu imika waxay ku soo qortay iskuulkan 5 macallin saddexna way soo socdaa 5ta macallin intay noo furan waa 4 fasal 4ta fasal way buuxin karaan halka dhimani waxa weeye waalidkii jaarka la ahaa dugsiga ama degmadii uu dugsigu ku dhex yaalay inaanu ku dhex aradin iskuulku waayo qof ehelkaaga ama tolkaaga hadduu kugu dhex arado ceebta isagu ma qabo inta ehelka waaba qabta aradnida iyo dayacnaanta inta ehelka waaba qabta dugsigan hadduu dayacmo iyo hadduu dad waayaba waxa qaba oo loo qabanaya inta uu ku dhex yaalo waa marka koowaad dugsigan wuxuu u furan yahay cid kasta oo doonaysa inay wax ka faa'iideysato oo aan lagu xidhayn hayb oo aan lagu xidhayn madhab oo aan lagu xidhayn midab cid walba uu furay taa macnaheedu waxa weeye waxay degmo ku noqotaa kow inay hesho dugsi sare laba inay hesho xaruntii degmada oo dhisan saddex inay yeelato xaruntii xanaanada afar inay yeelato rug booliis ama saldhig booliis shan inay yeelato hodheelo la seexdo degmada Boorama inta ma leedahay maya maxaa lagu qiimeyn markaas degmo lagaaga dhigi 130 May marka bari la qiimeynayo degmooyinka maxaad ku hawl galaysaa wasiir la'aan baan hayso dugsi saraba malin waxaad u sii noqonaysaa waa sheekooyinka raxiiseen inagu isku maaweelino wasiir la'aan baan dishay wasiir la'aan baa qeyrka naga reebtay dee dugsi saraba ma leedahay waa su'aasha koowaad maya xarun degmo ma leedahay maya albeerka ma leedahay maanta haddii uu madiina nagu soo dugto Hargeysa qaadi weydo la yidhaa geeya 130 May hageed sixir wax badan baa u baahan inaynu isbedelo wax badan baa u baahan inaynu fahanno wax badan baa u baahan inaynu la jaan qaadno waxa loo baahan yahay wasiirtaad ku helaysaa waa dugsigan camirato ragga ka soo baxa bari waxay noqonayaan injineeradii waxay noqonayaan maxaan ku dhahay wasiiradii waxay noqonayaan agaasimayaashii waxay noqonayaan kuwaad wax ka dhigi lahayd kuwaad ku dacwoon lahayd maanta wasiir malin u beelana ma dhirta lagu magacaabaya intaasoo qodoban soo sheegay haddaanad lahayn maxaad kula garami maxaad loo hortagi CV waa maxay markaad tiraahdo soo waalimaa wixin waxa weeyaan ma odayliin ma gudiliin ma xildhibaan liin ma oday dhaqameed way noo buuxaan laakiin waxaynan biriijka ma dhaafayno biriijka xagga uma taloon Falastiin baa aroortii markii xagga Israa'iil tagaan duurkii la soo noqday iyagoo muus iyo cambe iyo baba iyo wax wata kama Falastiin waxay noqonayaan haddayna tallaabina waxba soo helay
وحلو بهاي رجي الدمر با إنه نجرنا أقونت إنه يتم احترتها أقونت إنه يتم قفك وهي لسه أقونت إنه يتم جرات كل قادة أقونت إنه يتم أمت كلها ترتمي كرتو أقول الآن وايفتين الآن أقونت واحد كنت قفك جرات كونك سنة وحوسي كرنسة قفك اللي تنا كرب أوقاته مركا أوبت كني إنه نوه قلانو ما أنت هدي بس سوى تاجان إنك بيد عيود درتي قور مجور جايمان هدي بس هو البلد وايو قور مجور جا كسر نقول هدي اللي دام الحويني بمر يلا عصر كلا يسكما تلابيو قور الماء عيود درتي بيد عيمان هدو داتشور مدوم عبريز كدول مرو أو جواري جوكسيت قور الماء جايمان الماء جيو هالكا كاركتو وتقول جامر كداقة دفرتو تقول السعيل صار واحد قرع دول صوت دونا كرا هالكا سبتسين السقرع وحي سجى وايه سبات للصعريس لكن داد سكول كي لقى نحفره وهذا سكول كي ونقول لا هي إنك كوة تجمد كوبي صد كمية وي بدنتها لكن وحن أذ واحد ليا داد كم مجا سكول كو أبتر صدا كو أذو يسكبلو المهاجة كان المهاجة لو يمن ما أنت وحن الله لنا أنت يري نوتمد إيه dugsiga ku abtirsata laakiin koob iyo 30 kamay oo dhan odayadeeda oday dhaqameedkeeda hal doorkeeda gid waan la wada hadli maxaa dugsigan u dadlaayay muxuu dugsigan saaxadaari uu waayay arday macallimiin la'aan baa jirta hadii la raawo kuna way fadhiyaan macallimiinta ilaahay maadi waxa loo baahayay macallinka in la isgarab taago oo la guubaabiyo oo la dhiiri geliyo waxa la fadhiga laga kaco gabadh walaayba aabba walooba imka daaba u badilaaliyay ma jira habluun bay ilaaliyahay wanka hooyin baa ilaalisa aabe maanta intiina hablood halka fadhida iyaguna meel kale fadhiya waxa la gabadh waliba ilmeeda gacanta soo qabatay wasaaraddu waxay noo ballan qaaday gabadh kasta ama aabba kasta ilmihiisa soo bedelanaya in la inoo fududeeyo bedelka waa ka degaysa Sheekh Axmed dugsiga Sheekh Axmed Sheekh Nuux Fure siiya bedelka waa la keenaya halkana loogu haynaya marka waxa leeyahay gam ay hurdada dheertana ku jirno aynu ka baxno hareeraheenna aan eegno qeyrkeena raacno haddii kale halkaas isha barinta isku xidhnaan ilaano wasiir lanama siin si ku ku taraya runtii kow marka horeyso waxa ku faraxsanahay professorka yani rag badan ay halka isku yimid koor laba shay ay soo qaadnay mid waxa moodo inay hirgashay mid ma hirgashay maxay tahay marka hore meesha imaanay caruur baa meesha buuxay gidaaraha wala jibinayay kubada lagu ciyaarayay حتى وركيسا وشاقنا ويني dadka dariska la meesha dad waxa runta ka xumahay ina u sheeg jaran laha inay meesha iskuul yahay iskuulkuna qiimo weyn yahay wax walba nabiga markuu oreeyay walaal soo degtay maxay ayadu soo degtay maxay iqra wax walba waxa ka weyn wax barashado cilmi marka dadka dariska la adoo waxa iga codsanaya gidaarka ka daaya iskuul qiimo leh weeyaan iskuulka ha ilaasho كو وعقبني إنا معلمين اسمه معلمين ما لهن وحبا ما لهن أرض ما له لكن هذا معلمين تي ودوني ولا كين الحمد لله معلمين تي ولوي مدن وقال بقول قولي سني قال ولا بعض وعها إن كذا لا نسوا كذا وجبسي كاس عاد لوجبي عيال جبي إن دبلو لسه عيال سوق جين ورشاه نقول جري ده ما هو كهذا ولا هاللي ما هو بس جالسيني لعقتي أرولس كذي دود إلى كذا بكشوا ده يكون مية كذا بكشوا قفل بدي جري وحكاي سوق كذا بيقولوا أي قرشها تاسر وحنوها يو مارتي ده بقول دي نوها يو بروفيسور ترى كل شيء بحاول الله يحسنها والسكول اللي سيد اللي وينه مجال هرجيس سود يكون مية عروض بدلها ده بدلها ده قفل وحال إيجا قفل ده يراجعته مجال ده وحمل ماشته ده يراجعته ده هديك أسلوب أكثر مو كيري ده المها كان المها ده جيزو ما بيك ودرسها وبعد ليه ورد يعني أنت أقول بهاي إن هذا هو شقيه إلى أسلوب كان كيري أيام هاد إيه معروس قناطي أن محاكر هذا إيه هاك بعدي ده كل وحي لأوران لهذا ولا وذيري أو إلهي سبحانه الله وتعالى عرب كي يعود كبالله وتكي رجعني بعد ماي maxaan ku dhahaa aniga noqotay deemka waxaan ilaahayo kale ma jirto ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeyaan hal dadaalo odayaashu ha dadaalaan oo dhalinyaradu ha dadaasho war waxa weeyaan guri sees ma dhismo seesku waa ragga ee raggu fadhiga ha ka kacaan
dumarku way kaaliyaan oo raggooda isgarab taagaan laakiin seeska waxa dhiga ragga waxa la yiri kabo rag baa tolo dumar ma teedahaan bale rag baa tolo ee dumar ma teedahaan war sidaasay ka dhigan tahay raggu hadduu fadhiga ka kaco annaguna fadhiga waanu ka kiciyo garabkoodanu taaganahay hablaha Somaliland meel kastaba ha joogaani raggooda way garab taagan yihiin hadday wax alla wixii wal ay qabanayaanba barbarkooda ka yihiin annaguna sidaas un baanu naho barbarkoodaanu ka nahay kale waxa la iskugu yimid meesha la iskugu yimid waxa weeye waa waxbarasho waa aqoon la'aana waa iftilaan weeye cilmiga barashadiisuna diiniyan iyo maadiyanba waliba zamankan diinta in la barto maadigana la barto labaduba waa waajib marka insha Allah ta'ala iskuulka ana afka macallimiinta ku hadlaya oo soo dhaweynaya waanu ku dhownahay insha Allah ta'ala waxa kale insha Allah ta'ala yara ku dari lahaa ardayda ama waalidku marka ilmihiisa marka la leeyahay tarbiyadana ama tarbiyada awlaada ilmaha waxa loo tarbiyadeeyaa laba shay weey waa in ilmaha tarbiyada guriga markuu joogana aad ka warhaysaa goob waxbarasho markuu tagana aad ka warhaysaa labadaba maanta ilmaha adiga suuq hoose ka taga ama meel fog ka taga waxbarashadiisa kama warhaysid حتى هذه كلفات كونا قلنا سأنا بس كسير عبر سوق التكتو وذلمه سكور دونت معلمين تمركز صورس لقي يابين أنا سكول كذا تجينا مالها دحضة وفريست مركا دون سلمها جينا تربية ذي سكوري جنا وككلية جوات كت تربية ذينيس قوبتي وحبرشة مركو تجنا وين أتكور هيسا قون تردجناي وين أتكور هيسا ماشوا فريسان يعدوا الصديق مركا الله نقاني الراعي ويقف كوح يستدين تساحب كيست عدوا الراعي يوم دين تسلق الصنية وحاو كاس قبنا يوم سنلق الصنية سادرات ilmaha tarbiyadiisa waxay ku xidhan tahay goob aad arkayso inuu isagu waxbarashada uu joogo oo adigu marka iman karto tagi kartana kana wareysan karto kana warhayn karto iskuulkan oo iskuul qaali ah sida runta xaafadda maartay aynu ku jeesada kabeey joogno iskuulka waqti hore la dhisay hal dhisay laakiin iskuulka maanta uu tayacan yahay cid maartay waxbarashada markii la bilaabayna kullee meel ay wax ka nisin noqdeen doorta waa laga baxay halaga baxay haddana maanta inay kullee dib loo waajibna saaran marka iskuulkan maarta kullee inteena iskuul mid walba dul miisa keenaa beenintiis keeno kullee halkaas maarta siisu ka bilaabmaya insha Allah hadaynu hadalkeenu laakiin aynu iska hadalno iska tagno kullee de halkii baaba halkii buu ka bilaabmaya marka waa ilaa qof walba halka yimid intiisa yeelkiisaba uu keeno hadalkii de nuxub buu leeyahay intii ugu muhiimsanayd waa la yiri waa iskuulkan ana la hagaajiyo caruurtana la keeno ana loo dadaalo marka halka hadaan yar kaga noqdo ninkii loogu magac daray Sheekh Axmed Sheekh Nuux wuxuu ahaa inta kale waa la soo yidhay ninkii ma garanaysaa mas'uuliintii waagii Somaliland iskhilaaftay bariga galbeed kala jirtay ninkii madaweys uu keenay ee labada bilood yiri beer mooyaane iyo caan mooyaane wax kala ha cunina wax baalana cunina wax bariisana cunina marka isaga laftiisa waxa kale oo jirta waaba nin qaadaan u gurayo dabeetana wuxuu hebelow isqor dabeetana raggii ba hadli waayana meel aan fadhiye baad dabeetana waxaan iminka reeraha raguma taliyo wuxuun bay la cunaane waxa la doonayaa inaad xagga dumarka u leexato dabeetana ninkii uu qoslay iminka horta 7kan aynu ku jiro dumarka taliyo dumarku waxa weeyaan in caruuraha yiraahdaan iskuulkan inoo dhaweeyno saaca lahayn waxba lahayn inoo keena inay yiraahdaan ayaa fiican oo iyagu talada galaan waynu arkaynaa iskuulkii Sheekh Axmed Sheekh Nuux quruxdiisu sida ahayd maanta sidoo foolxu yahay waa dayacaad naga wada timid dadkeena degmada degan oo dhan maanta intaynu dhisnay oo aynu lacag gelinay oo halka hawl badan iyo militariga nagu haystay aynu dagaal badan ka galnay oo lacagteedii galinaba haddana aynu duminay inaga duminay waa nasiib Sheekh Axmed Sheekh Nuux iskuulkan loogu magac daray Sheekh Nuux baa halgamaa ahaa oo ingiriiskii dadkii la dagaalamay la halgamay ahaa badda dhexdeeda lagu xidhay Saadadiin meesha la yiraahdo lagu xidhay ingiriiskii baa ku xidhay ragii dadka waa la gaalaysiinaya markii la leeyahay waxa ingiriis baa la baraya halganka ka galay baa ahaayee Saadadiin buu ku xidhay jiray muddo dheer ingiriisku la dagaalamay afqaalid baraya baa leeyahay sida sheekhu sheegay xaajigu sheegay ciidagalaadna bari inta naga dhiman
oo af Soomaaliga noogu haysta halgamaa weyn buu ahaa iskuulkii loogu magac daray inuu dhexdeena ku dayacmo innagay nusqaan weyn inagu tahay ma dad la'a dadku waa buuxaan meel kale inuu wax geynaaye ubadkeenna aan keenno sharaf markaasuu yeelanayaa cid dambe jajabin mayso maalintan ubadka keenno aynu soo buuxinno iyagaa ilaashan guryahan la jaarkaa iyo deegaankan la jaarkaa oo u badan ciidamo askar militarigeenii qof wal oo iskuulkaa waxyaale waar ka daadaa ayaa gurmada waar in hebelow ka daa waa iskuulkaagii intaasaa gurmada intaa aynu isku gaadhsiino inaynu la ilaaliyo waa la dhisi doonaa insha allah oo waynu ku jirnaa hawshiisii oo waynu wadnaa galaasyana waa lagu kordhin oo xagga galaasyadana waa laga kordhin dayrkana waa la dhisi laakiin aan ilaalino hantideennii oonu jabadeenna ka soo saarnay ama dowladdeenna qasnada dowladdeena ka soo baxday oo haddana aynu dib u dibinaa waa dalkii oo dhan oynu dibinay ka dhigantay degmadan 11 May waxay ka mid tahay degmooyinka caasimadda ee diiwaan gashan ee macruufka ah intaa waxa dheer inay leedahay dugsiyo hoose dhexe oo tiradoodu ay 7 tahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu dugsiyada hoose dhexe badan waana manbac ama halkay ka soo baxday ardayda tirada waxay ka soo baxaysaa degmada lafteeda haddii aynu ku dhegsanaano Faarax Umar 26 Juun gacan libaax Maxamed Cali dugsiyada hore qadiimiga ahaa magac xumo ma kordhinayo waxaa inoo sheegay in macallimiinta halkan diyaar ku yihiin asbaabta hore ee xidhanta dugsigan u xidhmay waxay inoo faahfaahiyay professorka inay ahayd xagga macallimiinta iyo dadweynaha oo aan diyaar u ahayn tusaale badan buu bixiyo in waalidku ilmihiisa halkan ka wareyn karo haddii mushkiladaha shidaalku yimaadaan dooxan oo xidhma amuuro badan noocaas taladaydu waxay tahay inkastoo ay dowladda hoose waxbarashada aasaasiga ah oo iyadu ay imaka ay khusayso haddana mas'uuliyadda guud ee degmada waxaan dadweynaha oo hooyooyinka badan odhan lahaa caruurtiina dugsigan keena waa dugsi magac wanaagsan lahoo laba sheekh daba yaalaan odayaasheedina ay diyaar u yihiin in ay baahiyaadkeeda xataa wax ka qabtaan oo ay wixii taalkooda ah waxaan odhan lahaa markaa ha loo soo dadaalo dugsiga oo ha muuqdo oo sanadka dambe arday ka baxda ha la arka haddii la idhaah wuxuu inoogu daray muuse inay iyadana loo fududeeyey referalka ama transferka ardayda inay wasaaraddu fududeyso dabadeedna si yaroo muddo yaroo gaabanba uu dugsigu ku buuxsami karo waxaanu ilaahay ka rajeynaynaa sanadka dambe sanad dugsiyeedka 25-26ka inaynu aragno arday secondary oo ka soo baxay dugsigan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد. آد بانو السلام يا حفلتنا شرف كله. أنت سوق وانقابس آد بانو السلام يا دتك يسويمين كسوق يبقري الرجل الدمر بنا وان سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة هذا بديد dugsigu waxa weeye waa kii professorka inoo caddeeyey caynku yahay oo dhan ilaa maalintii hore isagoo cusub oo gacanta laga qaaday ayaanu wasiirkii hore ee joogay halkan ayaanu u dhiibnay soomaal garan dayacaadda ku timina dee beesha meesha taalla iyo maxaan ku iyo wasaaraddaba way ka timi hase yeeshee dacaanad daatay iyo dabadood la qabayey tii hore imaka waxba laysku canaanan meel soo dhaaf laga soo shaqeeyo rag baa imaka haddana ilaa imaka dee soo waday halka soo gaarsiiyey wixii hore uu maanta iskuulku soo marayna professorka inooga warramay yaa marka waxaan leeyahay waa iskuulku waxa weeye iskuul qolo lagu sheegaya maaha yaa magaca ninka loo bixiyey dee waa nin iyoba weli u halgamaankii ugu weynaa yaa halgamaankii ugu weynaa Soomaaliland halkan soo halgamay ee halkan raggii soo dhaliyay ayuu raggii ugu weynaa wey yaa ilaa iyo maalintii la baxay ilaa maalinkaa uu xisaabka galana intaa wuxuu u taagnaa cayn maxaan ku lahaa wuxuu u taagnaa dhismaha Soomaaliland iyo taabagalkeeda cabdiroosh maalintii iskuulka la sameeyey sheekh Ibraahim sheekh Yuusuf
يا شيخ أحمد سوكنوح يا حاج عبد الورابه الله يرحمه أنت أصلا الله ونحرسته أيها هدي بذيك له سدح لا تأسك حجوا حاج جنوح على تليها وين لبضن اللي وحي حجين إلى ما أنت إلى ما أنت عين كاسوسوها هدي مقع على ديدا أيوه ومقع على قرآن لقوا شيء أيوه لمن يجيبوها وهديك له هالجبانك سومال لامبوها هالجبان بوسها سومال لامبوها إلى أيوه أبيه أنت والبنا وها هالجبانك سوماليا أيوها مالتي لبحنا معاهم كلها إيه إنجليز كنا يجي في سومالي قاعد ينبريا يا يعني ينبريا يا شيخ لويري شيخ وحيري وارف سومالي هرب وانو نقاني هدي وحنا قدام يهينا نمنا نوالان هاي عيدا قال لي لا أيها نبري دون أنت نوحدي سومالي وحوي سكول كده تاريخ بولي سومالي ninka lagu magacaabana waa nin taariikh leh soo ma garan marka cid gooni ma laha waxa weeye iskuulkii 11 May ayaa iskuulkan leh khaasiyan de oo ku magacaabay dhexdeedii ka samaysan yahay marka waxaan leeyahay waynu caruurteen balag inaan ka imika halka laga dirayo loo dirayo maxaan ku rahay biyo dhacay loo dirayo ama calaamadihii loo dirayo ama loo dirayo maxaan ku rahay halka أقل كود كان يهاي بلاك أقل كود نواك سكول كنا واكن والمين معلق كسيه هاي مركب وحن لا هاي سكول كعروتي أنا إنه كانوا ورا سكول إنه كانوا فترة أنا أقول هذا ليه لحية سود كوبي سود كم يبان الله هذا أيوب الله هذا مايو كوبي سود كم يبان الله هذا ورعروتينا كان وسعيدت سود بوحية وعروتينا أو دناية إذا نتنايست مركب وحن لا إلهي أنا قافع إلهي أنا قافع دولة وين وذا قاعد دوته وحنا كلها منستر مال لقيه وحمترو ومد يدا حقبسته سو ما قال ومد يدا حقبسته marka waxa weeye waxaan leeyahay dadku nimca leeyna siiyeen nimcadan ka faa'iideysan nimca leeyna siiyaan ka faa'iideysan hareerihayna waa arkaysan waxa ka dhacaya waxa colaad iyo bamla tuuray iyo balaayo ka dhacaya waa arkaysan ammaanka leeyna siiyeen waynu arkayna war waxa weeye aan ka faa'iideysan amnigeena aan ka sameeyno nabadgelyadana aan ka shaqeyno ummadda aan walaalaysiino ummadda dhexdeeda aan walaalaysiino qolada iyo qabiilsha aan ka dayno aan walaalo taas wax lagu noqon karaa laguma noqon karo xaafadaasina waa reer taasina waa reer taasina waa reer waxa ina qaribta inaga daay ya xaafad baa la isugu faana anagu koob iyo soddon ka meeybaano anagu 20 ka juumbaano anagu waxaan Axmed Dhagax waxa soo dhame taas la isugu faana la isugu faano reer iyo qabiil iyo waxa la isugu faano taas waa wixii baabiyi macallimiinta la soo dirayna waa mahadnaqaya waxaana leeyahay war meesha waynu sameeynaa waa nooleynaa idina wixii dhibaato u dhabardayga aan leeyahay iyaga macallimiinta hadii alla yiraahdo marka intaas ma dee ku soo gabagabeynaya ilaahay dambigeena ha dhaaf kii waalidiinteena Allah ha dhaaf caafimaad Allah hayna siiyo nimco ilaahay hayna siiyo Allah shukrigeeda Allah hayna waafajiyo